argagixisadii way jabeen wayna sii maaragtay nafbaxayaan waxaana muuqata in ay shalay iyo daraadba ayadoo goob weyn ay luminayeen inay kaga argoosteen shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed shacabka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ku nool waxaan leenahay hal feejignaado marka koowaad marka labaadna argagixisadu guryaha iyo xaafadaha ayay ku dhuumanaysaa intay wax abaabulayso hal loo wada qaato hal loo wada gurmado ninka qofkii argagixisa lagu tuhmo in hay'adaha amniga gacanta laga soo saar la soo qabto xitaa ma in la soo sheegay in la qabto sida tuugada loo qabto kale in iyagana loo qabto waana ka dareeyeen tuuga alaabta xadaya oo xaafaduhu ay ceyrsadaan waxa ka daran midka nafta goynaya marka isaga tahayba in la ceyrsadaba oo la qabto wax yar baa haray magaalooyinka waaweyn oo laga nadiifiyo duurkii waaba laga nadiifinayaa magaalooyinka waaweyn oo laga nadiif waxa kaliya oo dhiman dhibaato waa baranay sida looga jawaabo dhibaatadu intay sadhicin ka hor sida looga hortago taasaan noo dhiman taasna hadda dariiqeedii waa la wadaa taasaan ku dardaarmeynaa shacabka Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba aad iyo aad baa u mahadsantiin